dhawaada channelkayga anigoo liidaa Ilham Jumaale maanta waxaan rabaa inaan kaaga sheekeeyo sheeko la yaab leh oo ka dhacda magaalada America gaar ahaan gobolka Florida. sheekadan waxay dhacday 1980kii waxay ku dhacday waxa isguursadeen nin iyo naag oo American ninka waxaa la yiraahdaa Steve naagtan waxaa la yiraahdaa Missy way isguursadeen. Steve wuxuu haystay laba wiil already from guur hore laakiin Missy ma haysan ilmo kale. cabaar isqabeen 1984 cunugooda koowaad isu dhaleen oo Joshua u bixiyeen. cunugooda wuxuu ahaa cunug aqlilow oo farxad badan ayakana way guurguur badnaayeen magaalo maray degaayeen magaalo badan ay guureen laakiin asiga meel kasta u guuran asxaab way leeyahay wiil furfuran oo ahaa walaalihiisna aad ay ugu fiicnaayeen oo ka waaweyn. ugu dambeys waxay soo degeen magaalo la yiraahdo Jacksonville. magaaladaas ay iskool ka tageen qaraa'ib iyo family iyo neighbor lahaadeen jiraan. aabahood xoogaa Steve Ward adkaa inkastoo jeclaa ilmihiisa oo mar walba u danay jiray laakiin waxyaalo xun oo qabiyay dabeecado xun oo xanaaq dhawaa waqaylo badnaa. wuxuu ahaa qof oo adag oo strict shuruuc u soo dejiyo guriga shuruucdaasna qofka oo khaalifo ciqaab oo xun oo marsii jiray. shuruudahaas waxaa ka mid ahaa in waqti mucayan lagu seexdo waqti oo xadidan oo hurdada taa waqti xadidan cuntada lagu cunaa waqti xadidan wax lagu baraha waqti xadidan lagu dheeli karaa. qofka oo waqtiga oo waxbarashada wax kala sameeyo ama waqtiga hurdada waxbarasho galo wuu ciqaabi jiray wuu ku qayli jiray yani asigu wuxuu ahaa qof neerboose mar walba soo ilmihiisa aad uga baqan jireen wayna iska ilaali jireen xanaaqiisa. kulligood way isku yani waxyaalihii oo ku qasbay inay sameeyaan way sameeyayeen until maalin maalmaha ka mid waxaa jireen cid dariskooda oo Clifton family la yiraahdo waxay haysteen laba gabdhood mid waxaa la yiraahdaa Jessica 12 jir ahayd tan kalena waxaa la yiraahdaa Maddie waxay ahayd 8 jir. asigoo la ciyaarayo aabihiis arka maalin maalmaha ka mid wuxuu ku yiri lama ciyaari kartid Maddie. maalin maalmaha ka mid aabaho Joshua aabihiis Steve wuxuu arkay Joshua asigoo la ciyaarayo Maddie iyo walaasheed Jessica caadi isku cumri ahaayeen laakiin Maddie aad ugu yareen. wuxuu ku yiri gabarta yariista la ciyaaraysid please ka fogaaw mar dambe yaa kugu arkin adigoo la ciyaaraysid. aabahan wax kasto yiraahdo yaa la sameyn khalaas waa go'aan oo kama dambeys niqaash ma laho ma la hadli karo ma la murmi karane waa waxay isku ogyihiin ay ku soo koreenba. 3 November 1998 waxaa dhacday Joshua asigoo wax dhigahayo oo waqtiga waxa barashadiisa lagu jiro albaabka la soo garaacay. albaabka marka la soo garaacay wuu kacay albaabka furay. markuu albaabka furay wuxuu arkay Maddie waxay ku tirkaanay ila ciyaar. wuxuu yiri Jessica maxay tiri waa maqada ani kaligay waay so please kaale ila ciyaar. markay saas ku tiri asigu wuxuu soo xasuustay warkii aabihiis wuu cabsaday wuxuu isiri laba sharci ajabihi adaa baxdadoo la ciyaartay gabartan. sharciga koowaad waxa waqtiga waxbarashada waxa sameeyay wax kale oo na ahayn waxbarasho oo ciyaar mana aha waqtiga ciyaarta waqtigan. qaacidada labaad oo jabihaayeen waxa waaye inuu la ciyaaro gabarta oo ku yiri aabihiis ma la ciyaari kartid because way ka yar tahay. asigu intaas oo wili waxa qaasda caruurnimada wuxuu yiri may xoogaa yaraa la ciyaara wili aaba soo ma dhawo waqti yaraa ka dhimo waqtigo aaba imaan lahaa soo waa la ciyaari karaa. way israaceen xadiiqada oo gurigooda gadaashiisa ku taalay tageen idii asiga Maddie oo jirto 8 jirta iyo asiga Joshua oo 14 jir ayagoo ciyaarayaan banoonigo by mistake ugu dhuftay isheeda dhiya ka yimid way ooysay way qaylisay. asigoo naxay wuu qaaday qolkiisa markuu geeyay wuxuu isku dayay inuu aamusi weysay way ka sii dartabo. asigu soo isku dayay inuu aamusi wuxuu sameeyay wuxuu soo qabsayay alwaax oo ku garaacay soo aamusi wuxuu sameeyay waa isku dhaxyaayay
muxuu ku sii garaacay weyba sii waa ila ka cunug yar aad dilaysid idoo xanuunsan maxaa ka fila kartaa of course way sii oysay asii sii qaylisay markay sii qaylisay wuu baxay jikada markuu tagi midii soo qaatay mididii uu ku ka taagay gabartii oo maanta dhan ku daldalay ilaa intay ka dhimatay markay dhimato hubsay inay dhimatay wuu qaadimeedkeeda wuxuu dhex geliyay joodariga iyo sariirta inta u dhaxayso intuu dhex geliyo oo seexday maalintii ku xigtay maalintaas waxaa la sameeyay maadii cideeda raadisay askarta u tagtay askarta u dacwootay askartii raadisay waa la waayay waa la yaabay maxaa dhacay dadkii familygii relativekii dariskii dadka oo dhan waa isku soo aruureen waa iswada raaceen kulligood way isla wada raadihayeen Joshua wuxuu ku jiro dadka oo raadihayaan gabartaas oo luntay gabarta oo asiga dilo waaya oo ku aasay sariirtiisa hoosteeda oo wuxuu iska dhigay nin oo ka damqahayo wuu raaciyay wuu la raadiyay gabartii markii 3 maalin laga soo wareegay cideed waxay dhaheen 50,000 u dhig aasihiina qofka keeno 3 maalin kadib markii la keeni waayo waxay dhaheen waxaan sii haynaa 100,000 qofkii oo keeno اسبوع markii kasoo wareegtay arintii Joshua qolkiisa oo caadi ahayn kasoo baxay hooyadiisa weydiisay waxay ku tiri maxaa waxa uraay ma nadiifisid miyaa qolkaaga yaantaan asbuuc may waa nadiifiyaa hooyo arono waxa ka hadlaysid ani wax ma isoo uraayaan okay saas miyaa ay tiri iska dhaaftay kadib markuu baxyo iskuulkiisa aadiyay ee soo gashay qolka ee fiirisay qolkii fiirisay meesha uu ka imaahayo waxay aragtay sariirta hoosteeda wax dhacaan camalo dhiig u ego biyo ee dhulka ku daadsan way yaabtay joodariga kor u qaaday joodariga markay kor u qaaday waxay aragtay lug soo dhacday lugti markay aragtay way isku naxday way ka carartay qolka askartay wacday askarta markay wacday askarta isla markii degdeg way yimideen markay yimideen isla markii waa la fahmay inuu Joshua galiyay gabartaan meeshaan Joshua iskoolka loogu tagay iskoolka asoo jooga la soo qabtay asijinka la geeyay waxa la yiri sheeg waxa sameysay asigu waa cabsay marabin inuu hadlo aabiisa u yimid taban aabiis asi aad uga cabsay aabiis wuxuu wax kasta sheeg markii saas ku yiri wuxuu ha ani waaye ana kaw ka sii gabartaan mar ugu talagalay anina kaw ka sii ani cabsi ay haysay aaba wuxuu ugu yiri lama ciyaari kartid way ka yar tahay dhaawac gaarsi karta wax kasta dhici karo wixiis wuxuu yirina ani wax kama soo qaadin Sara waa u dhaqmay aabana waa nin adag oo markii wuxuu noo sheego hadii wax kale aan sameeyo suxun oo noo dhaqma cabsi ay haysay waa aamusi qolka geeyay way aamusi diiday markay aamusi diiday waxa ku dhuftay alwaaxa way aamusi diiday way sii qaylisay waa cabsada aniga waxa sameeyaa waayay jikada tagay midiya soo qabsaday midiya ku taagtaagay ilaa inta ka dhimaday ka aamustay markay nafta ka baxday iska dhaafay waxaan galiyay joodariga iyo sariirta inta u dhaxayso waxa isdhaayay qof ma ogaan doonto Joshua markuu bixiyay i'tiraafkaas maxkamadda waxay ku xukuntay Joshua season of forever oo ay soo bixi karin oo any shart although asiga wuu yaray wuxuu ku jiriyay sin oo lagu xukumi karin dilmo marka hore waxa la rabay in la dilo laakiin lama dili karo qoys weeyriya 14 jir waa qof 14 jirna qaanuunka America ma siiha in lagu xukumo xataa xukunkaas oo yani 25 sano iyo waxa ka badan laakiin waxa lagu xukumo xukum daa'ima xukumkii cabaar kadib istinaaf uu sameeyay waa ku soo celiyay wuxuu rabay in laga yareeyo waa laga diiday waxa la yiri ma laga yareeyo حكم دائما leedahay ilaa 2023 isku soo noqosho labaad la sameeyay wala fiiriha asiga soo noqoyo soo u dhaqmaayay intuu sidii ku jiray soo sheekadeena maanta intaas ku dhamaatay waxa rabaa in ogaado adinka qaadiga ahaa laheedeen maxaa sameey laheedeen maxaa ku xukumi laheedeen adinkoo qofkan inuu asiga yani woo yaraa عمر أو وحكلا جرايم ما هي عبسي هاي سوء دلي جبرت أسمع ما حكوا حكم لهذا ضيقة إنسان إني ما هان ما حاسبه لهذا هذا جعلتين شيء كمان لينك جاي وحهي يصير also أداربتين تيك توك صادقة stories so please like and subscribe
iyo add me in TikTok stories kala soo dhigay xaggaas waa mahadsantihiin